مصطفى عبد الغني محمد iyo Muniira Khaliif Cabdilaahi waa laba caruur oo ku xanuunsan gudaha magaalada Laascaanood kuwaasi oo xaaladooda waxba looga qaban waayay dalka gudihiisa TV-ga caalamiga SBC oo saaka booqday guriga ay ka degan yihiin labadan caruur ahi magaalada Laascaanood si uu ugu kurgalo xaaladooda caafimaad ayaa waxa nooga warbixisay xanuunka caruurtan hooyada dhashay labadan caruurta oo lagu magacaabo Rooda iyadoo ka warantay waxa uu ku bilaabmay xanuunka caruurtaasi oo ay sheegtay in ay u bandhigtay dhaqaatiir fara badan ayna u sheegeen inay u baahan yihiin in loo diro dhakhtar dibadeed hooyadan ayaa sidoo kale noo sheegtay in aysan hayn qarash ay ugu qaado dhakhtar dibadeed macnaheedu maxaa ahayd tooyaan wax dhaqaatiir magaalada dalka laga qaban karo jiraan baleed dibadda mooyaan gabadhu uu ka darantay oo ka liidata isbuuc loo dhacdo sultaan adees laba isbuuc ma cuninba waxa qaadanayso marka isku dayday inaad dhaqaatiir iyo geysaan dadka gudihiisa si xanuunka loo eego dhaqaatiir dalka waa la geeyaa waxa la gacan qoon kara kam xarun baaqaysa ummadda islaamka maadaama caruurtan ummadda islaamka waxaan baqayaa ma yeelin ka gaaraan xanuunka caruurta marka may ku dhasheen mise waa iyagoo socon ma yarar ba ku dhaceen labadaba muusha dugula jira ku dhaceen وميلا لا مرمى dalka gudihiisa waxa laga qaban kara malaha dibadda ma ahayn hooyada dhashayna waa heer dayar ay ka dhalatay ma awoodo walaalayaal waxay naga codsanaynaa qaasatan Muniira waa caruur saad aragtaan xanuunsan waxa ku dhacay sida la sheegay xanuunka loo yaqaan macaatiska ma socon karaan waxay u baahan yihiin ummadda islaamka meel kasta oo joogto inay soo taakulayaan in xanuunkooda sida la sheegay dhaqaatiirta dalka waxba ka qaban waayo u baahan in la gaarsiiyo isbitaalada dibadda labadan caruur ayaa in muddo ku xanuunsanaa gudaha magaalada Laascaanood mana jirto cid isu taagtay caruurtan yar si wax looga qabto xaaladooda caafimaad oo u dhow mid hadii aan degdeg wax looga qaban ay keeni karto in ay curyaamaan caruurtaasi haddaba waxaa si naxariis leh looga codsanayaa ummadda islaamka in la samata bixiyo xaaladda caafimaad ee ubadka Soomaaliyeed oo u baahan inay u soo gargaaraan ummadda Soomaaliyeed Mukhtaar Cabdi Jaamac SBC TV magaalada Laascaanood